laba qori bay dhibayaan labadii qorina waa laga qaaday dhagxaantina waa laga qaaday dhagxaantu dhibaatay nagu hayeen wax gura waa doonayaan waan idinkoo soo gaadhin baan u wada daadiyey aan xaafadu ha gurato gurigayga xabad lagama hor qaadin war miyay ugu timaadeen aniga waxa la gurtay 8 leedo dhagaxo meesha yaalay baa la qaaday raalli baan ku ahay taararaan leeyna waa la dumiyey raalli baan ku ahay marka mahadnaq baan dawladda u jeedinaynaa waxaanu leenahay waxa dhiman ee la calaamadeeyay hana laga hor qaado dadkan guryaha dhistay ee nin kastaaba isku xeeray dhagaxa ee wadada xanibayaan garanayn xaq dariiq u leeyahay iyaguna waxaan leenahay ka waantooba waxaas dariiq waa ka qurux badnaaday waa ka inoo wanaagsanaaday dhagax wax ma taro biyo uu ka celiyaan waxba ku tarmayaan inta dadka u geysanaysay dadka wadada maraya ayuun baad dhibaysaa laakiin anagoo dugsiga hoose dhexe guriga Soomaaliya ka qayb galay waxaan leeyahay ubadka in la baro muwaadinimada oo ay dalka iyagu leeyihiin oo ay ka qayb qaataan waxqabadka degmadooda iyo halka iyo Soomaaliland oo dhanbade inay iyagu leeyihiin oo ay ka shaqeeyaan oo ay gartaan oo la xijecleeyaan ayaan u soo kaxeeyay anagoo gudoomiye ururka Abu Hurayra Charity Organization ayaan Cismaan Yuusuf waxaan ka soo qayb galay ololihii nadaafadeed oo aan bil walba ka qayb galno Maxamed Moogo waan ka qayb galay waxaan ka qayb galay hatanka June insha Allah koodbuurna waa la kala qayb galaynaa waxaanu nahay urur samafala oo kala shaqeeya arrimaha bulshada wax kasta